nabadi korkaaga ahaato waa qaybtii toddobaad sheekooyinkii taxanaha ahaa ee la xiriiray shirqoolladii ugu xasaasanaa ee dunida ka dhacay qaybtanna waxaynu kaga hadlaynaa malik faysalkii sacuudi carabiya iyo shirqoolkii dahsoonaa ee lagu khaarajiyey boqor faysal bin cabdulcasiis aal sacuud waa boqorkii sacuudiga xukumayey muddadii u dhaxaysay 2 bishii Noofembar 1964 ilaa 25 Maarso 1975 waana wiilkii saddexaad ee uu dhalay aabihiis boqor cabdulcasiis marka laga hadlayo wiilasha boqorku dhalay waxaana boqor cabdulcasiis uu dhashay malik faysal xaaskiisii lagu magacaabi jiray durfa bintu cabdullaahi bin cabdiladiif aala sheekh al-taymiimi boqor faysal aabihiis ayaa isagoo aad u da'yar soo geliyey siyaasadda waxauna safarro booqasho ugu diray dalalka UK iyo Faransiiska markii uu dhammaaday dagaalkii koobaad ee adduunka waxaana xilligaasi malik faysal uu jiray 13 sano sanadkii 1939 waxa uu madax u noqday wafdigii boqortooyada Sacuudi Carabiya ka socday kana qaybgalay shir ka dhacay magaalada London kaasoo looga hadlayay qadiyadda shacabka reer Falastiin wuxuuna shirkaasi caan ku ahaa magaca shirkii miiska wareegsanaa muddadii u dhalinta yaraa malik faysal waxa uu aabihii u diri jiray hawl walba oo muhiim ah sidii inuu u diyaarinayo la wareegidda talada dalka waxa uu wasiirka arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Carabiya noqday sanadkii 1932 isagoo isla xilligaasna ahaa guddoonka golaha shuurada ee boqortooyada malik faysal markii loo magacaabay wasiirnimo arrimaha dibadeedka boqortooyada waxa uu aabihiis malik cabdulcasiis kula taliyay in xiriirka diblomaasiyadda loo jaro dalka Mareykanka xilligaasoo Mareykanka iyo qaramada midoobay ay ku mashquulsanaayeen sidii Falastiin loogu kala jari lahaa laba dawladood oo kala ah Falastiin Carabeed iyo Israa'iisha Yuhuudda balse taladii uu soo jeediyay lama fulin Mareykankana wax xiriir looma jarin sanadkii 1953 waxaa loo magacaabay ku-xigeenka koobaad ee ra'iisul wasaaraha Sacuudiga isagoo isla waqtigaasi jagooyinkii hore aan laga taaban waxaana jag ahaan uu ka sarreeyay walaalkiis Amiir Sacuud oo xilligaas ahaa ra'iisul wasaaraha Sacuudiga waxa uu noqday dhaxal sugaha boqortooyada kadib markii uu aabihiis dhintay waxa xilka boqortooyada la wareegay walaalkiis Malik Sacuud bin Cabdulcasiis kaas oo malik faysal u doortay inuu noqdo dhaxal sugaha boqortooyada ee xilka kan damayn doona sanadkii 1960 waxa isku dhaceen isaga iyo walaalkiis boqorka ahaa ee Malik Sacuudi kadib markii ay isku fahmi waayeen siyaasadaha qaar ee dalka lagu maamulayo taasi waxay keentay in jagooyinkii badnaa ee uu hogaamin jiray malik faysal laga wada xayuubiyo marka laga reebo jagada ku-xigeenimada ra'iisul wasaaraha muddo 2 sano ayuuna xaalku sidaasi ahaa ilaa la gaaray sanadkii 1962 xilligaas oo mar kale loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha boqortooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda la wareegidiisa xukunka boqor Sacuud sanadihii u dambeeyay boqortooyadiisu waxa uu ahaa mid la daala dhacaya xanuuna ka soo laalaabtay kuwaasoo ku kalifi jiray safarro dibadda ah inuu galo si uu dalalka hormaray isugu soo daweeyo sida awgeed uu sii wadi waayay hawsha xakamaynta culayska xukunka dalkaas waxa kale oo sii ballaartay misna joogta noqday khilaafka ka dhaxeeya isaga iyo walaalkiis dhaxal sugaha malik faysal markii ay xaaladdu ka sii dartayna waxa shir degdeg ah qabtay Amiir Maxamed bin Cabdulcasiis oo ahaa walaalka ka weyn Malik Faysal iyo Malik Sacuud Amiir Maxamed waxa uu ahaa mid aan doonaynin qabashada xukunka balse markii qalalaasaha iyo khilaafka siyaasadeed batay waxa uu isugu yeeray culimada fatwada iyo xukaamta boqortooyada xilligaasna waxa ay taariikhdu ku beegnay 29 Maarso 1964 waxa uu ka dalbaday inay soo saaraan fatwo sida awgeedna culimadii ugu sareysay boqortooyada Sacuudiga ayaa xilligaasi soo saartay fatwo u dhignayd sidan Malik Sacuud wuxuu sii ahaan doonaa boqorka Sacuudiga balse Malik Faysal maadaama uu yahay dhaxal sugaha sidoo kalena Malik Sacuud uusan awood badan oo dalka ku maamul lahayn waxa uu furan inuu si ikhtiyaarkiisa dalka u sii hogaamiyo siyaasadda gudaha iyo timid dibadda ha joogo boqor Sacuudi ama ha maqnaadee waxaanu halkaas ka fahmaynaa in malik sacuud xilkiisa lagu soo koobay boqor sharafeed halka awoodda dalka oo dhan loo gacan galiyay boqor faysal oo ahaa nin caaboon aamus badan sidoo kalena aragti dheer lahaa kadib fatwadii culimada waxay shir kale isugu yimid ilmihii uu dhalay malik cabdulcasiis yacni malik faysal walaaladii iyo madaxdii ugu sarreysay qoyska aali sacuud waxay soo dhaweeyeen fatwada culimada iyagoo malik faysal ugu baaqay inuu si degdeg ah u fuliyo fatwada culimada sidaas ayuuna malik faysal ku noqday xaakimka boqortooyada balse wali xilka boqornimo laguma maamuusin waana tab lamida sida haatan maxamed ibn salmaan ku maamulo boqortooyada sacuudiga maadaama aabiis malik salmaan uu howlgab waayeela yahay
tallaabada ay qaadeen culimmadii boqortooyada iyo saraakiisha Aala Sacuud waxaa qaadacay Malik Sacuud waxaana sii korortay khilaafka ka dhaxeeya isaga iyo walaalkiis Malik Faysal markii xaaladdu ay ka dartay waxa go'aan wada jira lagu gaaray in xalku uu ku jiro Malik Sacuud oo xilka ka tanaasula iyo in Amir Faysal bay'ad la galo boqorka cusub ee Sacuudigana loo xil saaro ragii ugu sarreeyay qoyska boqortooyadu waxay u tageen Malik Sacuud waxay u sheegeen in dantu ku jirto inuu xilka ka dago walaalkiisna ku wareejiyo culimmada go'aankaas way taageereen balse Malik Sacuud mar kale waa uu diiday waxay keentay in boqor Sacuud xilka laga xayuubo si khasab ah taa beddelkeedna walaalkiis Malik Faysal boqorka cusub ee Sacuudiga loo magacaabo waxayna xilligaas taariikhda ku beegnayd 2 bishii November sanadka 1964 muxuu kaga duwanaa Malik Faysal boqorradii kale ee Sacuudiga boqor Faysal waxa uu kaga soconaa boqorradii kale ee Sacuudiga soo maamulay inuu ahaa nin go'aamada kuwa ugu saxan qaata mar walba waxa uu xigmad qoto dheer u lahaa sida loola tacaalo arrimaha kala duwan ee soo wajaha waxa uu ahaa nin go'aan adag aamus badan caaqilna ah dadkuna ay ku tilmaamaan inuu caadil ahaa tilmaamaha wanaagsan ee uu lahaa waxay keentay in saaxiibkiis ay jeclaadaan sidoo kale waxa jeclaaday dhammaan shucuubta kala duwan ee Carbeed ha ahaadeen kuwa khaliijka ama carabta galalka kale reer Shaam Ciraaq iyo Afrika muhiimadda uu siiyay qadiyadda Falastiin muddadii xukunka hayay waxay ahayd mid qoto dheer sida qorraxda oo kalena u cad waxa uu si caalami ah uga qayb gali jiray difaaca xuquuqda shacabka reer Falastiin mar walba qaramada midoobay waxa uu sheegi jiray sida ay u burburiyeen dalka Falastiin intaas kuma ekayne waxa uu ahaa caalamul islaamna uu ku boorin jiray difaacidda shacabka reer Falastiin isagoo oo sidaas oo kale waqti badan geliyay sidii loo go'doomin lahaa Israa'iil loogana hor istaagi lahaa wax kasta oo aqoonsi dawladeeda ah muddadii uu socday dagaalkii Oktoobar 1968 ee u dhaxeeyay Masar iyo Syria oo dhinaca iyo Israa'iil oo safa wuxuu Malik Faysal dawladaha Carbeed ka dhaadhiciyay sidii reer galbeedka looga joojin lahaa shidaalka go'doomin iyo cunaqabateyn dhanka gaaskana loo saari lahaa si ay jawaab uga noqoto taageerada Israa'iil garab taagnaayeen waana arrin reer galbeedku ay si weyn ugu dhibtoodeen sidee loo shirqoolay maalin Talaado ah 25 bishii Maarso 1975 wiil uu adeeru yahay Malik Faysal kaas oo uu walaalkiis dhalay laguna magacaabayay Faysal bin Mas'uud bin Abdul Aziz ayaa ku dhuftay xabad ayadoo waqtigaasna Malik Faysal uu kulan la lahaa wasiirka batroolka ee dalka Kuwait goobta uu ku sugnaa ayaan ahayd xafiiskiisa gaarka ee boqortooyada wiilka dilay Malik Faysal ayaana adeerkiis dhowr xabadood ku dhuftay mid ka mid ah xabadahu waxa ay goysay xididka halbowlaha gooymadaas ayaa sabab u noqotay dhimashada Malik Faysal bin Abdul Aziz Aala Sacuud yaa ka dambeeyay falkan kiiska shirqoolka Malik Faysal waa mid furan ilaa maantadan la joogo inkastoo boqortooyada Sacuudigu sheegtay inaysan ahayn shirqool la soo maleegay haddana wararka shirqoolkaasi laga helay ayaa ahaa kuwa ciidaas ka badan waxaan ka soo qaadaynaa inta ugu muhiimsan wiilka dilay Malik Faysal waxa uu waxbarasho jaamacadeed u aaday gudaha Mareykanka halkaas dhowr magaalo oo kala duwan ayuu tagay waxa dhacday inuu mar la xiray sidoo kale lagu eedeeyay inuu watay maandooriyaha daroogada sidoo kale xog kale waxay tilmaantay in muddada halka uu ku sugnaa sirdoonka siyaasadda Mareykanku ay askareeyeen una adeegsadeen dilka boqorka wiilka oo ahaa mid dhib badan waxa lagu soo celiyay boqortooyada Sacuudiga isagoo laga mamnuucay safar dibadda ah arrintaasi waxay dhalisay inuu cadaawad u qaado adeerkii sidoo kale warbixinadu waxay tabiyeen in sirdoonka Israa'iil ee Mossadku ay ka faa'iideysteen arrintaas wiilkana aad ugu dhawaadeen ayagoo ka dhaadhiciyay khaarijinta adeerkii Israa'iil ayaana Malik Faysal waxa uu ku ahaa laf dhuun gashay waxay u arkayeen caqabad weyn oo hortaagan kaligoodna ma ahayn waxa uu Malik Faysal caqabad ugu arki jiray dawladda Mareykanka taas oo uusan xiriirkoodu wanaagsanayn iskaashi dhex maray Mareykanka sirdoonkooda iyo Mossadka Israa'iil waxay suurtagelisay in la askareeyo wiilkan uu adeerka u yahay boqorka la dilay kaas oo aysan waqtigaasi cidna ka shakinayn inuu dili doono adeerkii waxay ahayd fursad dahabi ah oo soo martay Israa'iil iyo Mareykan wiilka dilay Malik Faysal ayaana si caadi ah u soo dhexmaray ilaalada boqorka isagoo qasriga ugu yimid boqorka ayaa dhunkasho ku soo dhaweeyay wiilka uu adeerka u ahaa balse jawaabtii wiilka bixiyay ayaa noqotay dhowr xabadood oo adeerka ku dhuftay inkastoo wiilkaasi boolisku qabteen markii dambana xabsiga la dhigay sidoo kalena la sheegay inuu dhibirka ka jiranaa haddana khubarada falanqaysay kiiskan shirqoolka waxaan marnaba shan kaga jirin arrinta ay ku lug lahaayeen Israa'iil iyo Mareykanka sabab la xiriirta batroolkii cunaqabataynta ee uu saaray boqorka la dilay iyo siyaasadii adkayd ee Israa'iil ay ku wajahday muddadii uu xukunka hayay boqorkan reer Aala Sacuudi